الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل كأني صدحات نكفى إذا سنيني ويديمها أي سو ويديان ددوينه فضيلة الشيخ محمد شيخ عمر درير جوابها وسيو إلهي سبحانه وتعالى شيخ بركايه. سؤالها نسوق قاري دينو كبلونه سؤال شكوباد وحلي سائل كان سوق قري من اللي قلت كان كلام مريو صور رلا صور حيواني وحلم ذا أما بقرا الله يكون قريهين من اللي قلت كان كراه سؤال شلبات سائل كسوق قري وحلي هي إن لو تصبح صدا تصبح إلكتروني جاء لو ترصدا تصبيح إذا ياد كارته محل شريعة الإسلام كقبتها. su-aasha saddexaad saailka soo qoray wuxuu leeyahay waxaa jira dad fara badan oo dhalinyaro ah rag iyo dumarba leh oo iyagoo qaangaadha haddana salaada dayaca oo aan salaada tukanin. dadka maxaad sheekula talin lahayd? muxuu yahay se dowrka uu waalidku ku leeyahay inuu ubadka ku tarbiyeeyo inay cibaadaystaan? su-aasha afraad saailka soo qoray wuxuu leeyahay salaatuleylka xilligeeba ugu fadli badan oo aan tukan karaa mase bannaanta inaan tukado labada aadaan inta u dhaxaysa? dabcan waa aadaanka hore salaada subax ka horeeya iyo aadaanka subax. su-aasha shanaad saailka soo qoray wuxuu leeyahay haddii imaamku qur-aanka uu qaldo markaan isku dayo inaan saxana uu ku adkaystay qaladkiisa salaadaasi wax ma noqonaysaa? su-aasha ugu dambaysa qaybta cibaadooyinka wuxuu leeyahay saailka soo qoray salaadihii aanu jamaca ku tukan jirnay haddii masaajidadii la xidhay oo xanuunkan daraaddeed loo xidhay ma ka helaynaa fadligii aanu masaajidka ka heli jirnay guryaha markaanu ku tukanno? falyatafadal sheekh maxamed. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد marka hore qofka waxa haboon inuu aadaabta salaada ilaaliyo. aadaabta salaadana waxa kamida wixii sawir ah qofka salaadiisa ka jeedinaya iyo khushuucda inuu ka feejignaado waxay u nuglayn kartaa inuu shaydaanku duufsado ama leexiyo. rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam sijaayad buu ku tukanayay markaasaa wuxuu uhi sijaayadan iga qaada salaadiiba iga mashquulisay calaamaday lahayd qof kalena maxaad u marayn? markaa sawiradaa foosha xun iyagana hadalkooda daa laga yaabo qofka kugu daba tukanaya inay ishiisa jeediyaan amaba ay noqdaan wax dee ceebi ay ku jirto oo cid kaloo xun lagu xayeysiinayo. salaada ma jebinaysa laakiin waa noocaan adaabta salaada u wanaagsanayn. su-aasha labaad ee ah tusbaxa elektroniga marka yar farta la gashadee saa loo dhaqdhaqaajiyo wuxuunu la mid yahay tusbaxan kale. tusbaxa kalena wuxuu noqday wax loo kaashanayo un cibaadada sida microphone-kan ama codbaahiyahan aynu cibaadada u kaashanayno ayuunbaa isagana cibaadada iyo tirsigeeda loogu kaashanaya oo kan codkii in dadka la gaadhsiiyaa loo gargaarsanaya kana in cibaadadii la tiriya ayaa loo kaashanayaa ee laftiisu cibaado maaha. sidaa daraaddeed haddii aan wax kale ku jirin oo ama qofku aanu istusnimo ku daraynin ama waxaan aanu cid kale calaamad u ahayn dhib ma laha. su-aasha saddexaad ah dadka salaada ka tegaya hadday yihiin dad yaryar iyo hadday yihiin dad waaweynba cibaadada salaadu waa cibaado weyn. makaanada ama darajaday salaadu ku leedahay waa darajo weyn. darajada labaad weeye qofkii markuu tawxiidkii ku dhawaaqo ashahaato waxa labaad laga doonaya waa salaadii. sidaa daraaddeed ba asxaabtu ay leeyihin gaalnimo waxaan u naqaanay wakhtigii nebiga salaad la-aanta. markaa cid walba waa in lagu waaniyaa qofkuna ogaada hadduu qaangaar yahay cibaadadaas inaan laga dhaafayna ay faral tahay isagoo cudurdaar yeesho un mooyaane. cudurdaarkeeduna dee allah inaga badbaadiyo waa isagoo qofka caqligiisu isbedela haddii kale sidii kolba karaabuu ku tukanaya. marka daayartana waa in lagu rabeeyaa siduu nebigu ina baray sala allahu calayhi wasalam. caruurtiina marka ay 7 jir gaadhaan salaada farag 10 jirkiina ku edbiya 15 ka tagi maayo way macnaheedu. waqtiga ugu wanaagsan
salaada habeenkii la tukada salaatuleylka la idhaahdo waa 4 saacadood dambe labada iyo wixii ka dambeeya nabigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam salaadoo dhan inay u fadli badan tahay salaadii nebi daawuud salaada nebi daawuudna waxa uu ku sheegay markuu habeenkii 6 hurdo ayaa qaybta dambe uu kacay thuluthu leyl alakhiir habeenka 3 meelood oo meel marka ay hadho ayaa u fadli badan waa waqtigu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay soo degayo uu leeyahay yaa dembi dhaafi weydiisanaya ee aan u dhaafaa yaa waxay baryaya ee aan siiyaa waqtigaasi baa u qiimo badan qofkii kari karaya soo kici karaya labada adaan dhexdooda waa la tukan karaa adaanka hore iyo adaanka dambe cunadana waa la cuni karaa qofku marka uu bisha ramadaan doonayo inuu subaxii soomo subaxa adaanka dambe marka waagu dilaaco la adaamo kolkaasunbaa waktigii salaatuleylku istaagay iyo waktigii cunadu imaamka qur-aanka uu jabiyey hadduu yahay faatixadii salaadii ma ansaxayso isagii kama ansaxayso kii ogaan ugu xidhana kama ansaxayso ummi baa la idhaahdaa faatixadiina arkaantii salaaday ka mid tahay marka hadduu qofkii arkaantii mid ka mida ka tago salaadiisii way buraysa qur-aanka kale laakiin ee in la akhriya ay sunnaha tahay hadduu imaamku jabiyo salaaddii waxba noqon mayso isagana waxa fiican in uu dhagaysto marka loo toosinayo qur-aanka ee loo furayo qofkuna habka uu qur-aanka ugu furayaa waa inuu noqdo hab fudud oo meel gaaban iyo aanu ka soo qabanin xaraf keliya su-aasha odhanaysa masaajidadii haddiina laga xidhay meelaha kale aanu ku tukanayno fadligii ma ka helaynaa saasaynu ilaahay ka rajaynaynaa haddii jamacii aada xaafadaha ku ogto dee nebigu wuxuu tilmaamay salaada jamaca lagu tukanayaa inay 27 darajo la mid tahay te masaajidkaa sii fadli badnayd masaajidkii laakiin haddii ay suuroobi weyday jamaca meelaha kale lagu ogayaynu fadligii ka rajaynaynaa inuu ilaahay inaga siiyo subxaanahu wa tacaala wallaahu aclam barakeeyo inagana inagu anfaco cilmigaasi saa'ilkan wuxuu leeyahay haddii qofku u dhinto maalan dab oo kale ama biyo oo kale ay qarqiyaan amaba xaqdarro lagu dilo qofkaasi shahiid ma noqonayaayo shahiidkii axaadiistu ay sheegeen iyo fadligii shuhaadadu ay helayeen ma soo gelayaan su-aasha labaad saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay dumarku inay xabaalaha booqdaan oo ay tagaan maxay shareecada islaamka ka qabtaa waliba waqtigan aynu joogno waxa badan dumar fara badan oo janaasada raaca oo gaari gaara intay qaataan maaragtay ka qayb gala oo xabaalaha taga arrintaa shareecadu maxay ka qabtaa su-aasha saddexaad waxay leedahay gabadha soo qortay gabadh baa soo qortay magaceeda ka muuqda nin baanu ismeher xadnay meher xadka kadibna muddaanu kala maqnayn wax biilana igumuu siin arrintaas ma iska fasakhi karaa meher xadka laftiisa shareecada islaamku maxay ka qabtaa su-aasha afraad gabadha soo qorta waxay leedahay goormay bilaabaysaa ciddada ay tirsanayso gabadha laga geeriyooday maxaase waajiba markay muddadaasi ay dhammaato laga rabaa inay samayso su-aasha ku xigta qofka soo qoray wuxuu leeyahay waa gabadh iyaduna sida darkeeda ka muuqda odaygaygu wuxuu u tagaa faaliyayaasha iyo kuwa wax sheega maxaa arrintaa diinta islaamka ka qabta anigana maxaa ila gudboon su-aasha lixaad wuxuu leeyahy ninka soo qoray waxaan haystaa maal isugu jira xalaal iyo xaraam maxaan ka yeelaa xoolahaasi weliba hadalkiisa waxaa ku jira inuu qayb ka mida sadaqa u diyaariyey bal si uu arrintaasi uga takhalluso su-aasha toddobaad saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay lixdaasna su-aalna shamax fadal alxamdu lilaah xadiidka rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa ku cad saxiixa ah shuhaadadu inaanay ahayn qofka dagaalka gaalada ku shahiiday oo keliya laakiin waxaa ka mid a qofkii daacuunku dilay kii caloosha u dhintay kii biyaha ku haftay kii dabku uu gubay macnaha ololkaasi leefesdaa ku dhintay waalmar'atu bijumcin oo riwaayanka qaarkood ay ku darayaan iyo ruuxii dumarka ahayde isku go'day iyadoo weli aan dhalin markaa shuhaadadu sidaasay u badan yihiin qofka isagoo naftiisa iyo maalkiisa difaacaya wax dhib aan cid kale u geysan la dilana isagana shahiid buu ku tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam
marka waa fursad weyn oo ummaddu ay haysato intaasoo meeloodba haddii ay ka heli karayaan darajadii shahaadada ahayd laakiin qofkani waa inaanu isagu isdilin oo shahiid noqon maayo haddii uu isdilo waxaan isku sameeyee ahlu naar buu noqonayaa wax gardaraayo waa inaanay ka imanin xaggiisa xabaalaha ma booqan karaan dumarku culimada islaamku haabay u badan yihiin waa se laga wanaagsan yahay waayo dumarku isku mid maahee qaar baa yaro murugooda amaba barooran karaba xadiidka saxiixa waxay ku leedahay saxaabiyaddii Umu Catiya la odhan jiray waa naloo diiday jinaasadda inaanu raacno nalaguma se adkaynin saasay u fahantay marka diidmada ayaan ahayn diidmo xaaraana ama adag bay leedahay caaisha allah ka raali noqdee maray soo booqatay xabaashii walaalkeed cabduraxmaan ibnu abi bakr oo la weydiiyo la yidhi sawkii nebigu diiday markii dambe u oggolaaday bay tiri markaas guud ahaan waa inay fasax tahay xagga dumarka waa se laga wanaagsan yihi waxaana shardiyahoo la socda in fitno laga aamin yahay haddii fitna ay imanayso ma booqanayaan markaa axaadiid diidaysa iyo qaar ogoliba way ku soo arooreen laakiin qowlkaasay culimmadu qaateenee u badan yihin su-aasha kale ah guurka qarsoodiga ah guurka qarsoodiga ahi waa ka noocee ah haddii uu guurku leeyahay arkaantiisii labadii qofay isguursanayey labadii markhaati weligii guurinayey iyo erayadii siiqada ahaa ee macnaha dee wax lagu guntaye lagu meherinayey intaaba haddii lala yimi guurkaasi muclan weeye waa mid la muujiyey kol hadduu markhaatiyaba joogaan marka haddii looga jeedo kan curfiga casrigan la yidhaahdo oo ah intoo la ismehersado weligii guuriyo wax walba la dhammeeyo in xukuumadaha laga qariyo kaasaa laga yaaba in loola jeedo oo aan maxkamadda la marinin waraaqano loo samaynin guurka noocaasi wuu ansaxayaa laakiin in sidaa wax loo fuliyo waa laga fiican yahay waxaa dhibka ka imanayaana uu yahay waxaa laga yaabaa carruurta nasabadoodiiba inay la dafiro labadii qof midifirdhado waxaa kaloo suuragala ruuxa dumarka inay xuquuqdeedii weydo oo idhaahdo maba qababa markaa wuu ansaxayaa laakiin waxa fiican in loo sameeyo waraaqihii iyo wixii loo baahnaaye meesha ay joogaan lagaga dhaqmayey su-aasha odhanaysa goorma ayay bilaabmaysaa ruuxa dumarka ah ee laga geeriyooday ciddadeedii ciddadu waa cadadbax waa 4 bilood iyo 10kii ay tirsanaysay ruuxa dumarhee ninkeedu ka geeriyooday waxay bilaabmaysaa marka uu naftu sidaa uga baxdo ee uu dhinto ayaa kow ay noqonayaanoo la bilaabaya marka hadday maqasho geeridiisa oo iyadoon ogeyn bay mar dambe maqashay 6 bilood kadib bay maqashay way dhammaatay way ciddadii 2 bilood kadib bay maqashay inta u hadhuun bay tirsanaysaa inay ogtahay waxba shardi maaha marka ay ciddadaasi dhammaato wax ku waajibayaa miyuu jiraa way ayaa su-aasha ku jirta waxaan filaya inay uga jeedaan waxaan la idhaahdo asaydii bay dhigaysa dhigidda asaydoo xoolo lagu qalo taasaa laga yaabaa inay uga jeedaan haadaa laa asla lahu wax asala oo sheegaya in ruuxa dumari markay hangafta dejinayso ama maradii iska dhigayso mara khaasay xidhanaysay may jirin laakiin markay dhammayso un hawshan iyo ciddadeeda markay dhammayso in wax la qalo taasi waa dhaqan waa iska caadow laakiin wax asala ma laha in la sameeyana ma aha kol haddii shayga cibaado looga niyoonayo in wax lagu daraa waa xaaraan oo bidca la yidhaahdaa ninkaygu wuxuu u tagaa faaliyaha iyo fooxisada arrintaasi rag iyo dumarba xaaraan bay ka tahay waana dembi nebiguna salى اllahu عalayه wasalam xadiidkii saxiixu muslim min xadiidi jaabir waxa uu ku yidhi qofka u taga faaliye iyo sixirlow 40 maalmood lagama aqbalo salaadiisa bal haddii uu rumaysto sidaa ugu tegey abi hurayra allah ka raali noqdee isaguna wuxuu warinayaa xadiid uu leeyahay qofka faaliye u tagaa diintii nebi maxamed lagu soo dejiye uu ka gaaloobay aayaddaas ka warramaysa reer banu israa'iil siday sixirlayaasha ula xidhi jireen suuratu lbaqarana iyaduna waxay tilmaamaysaa wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixr marka sixirka samayntiisa
adeegsigiisa iyo faaliyaha iyo saaxirlaha u tegiisuba xukunka shareecadu ay ka qabtaa sidaas weeye intaa hore intaasaynu kusoo gaagaabin lahayn su-aalahooda dabcan su-aaluhuna dee kol haddii ay aanay muxaadaro ah inay su-aal tahay in lagu soo dhowaadaa wanaagsan cawaamu naasna su-aaluhu ay ka imanayaan oo aan markaa aynaan sii dheerayn wallahu aclam jazaaka allahu khayr wbaarak allahu fiik waaxsan allahu ilayk sheekh maxamed su-aal xaggii hore aan ka sheegay haddaan dib ugu noqdo wuxuu leeyay saa'ilka soo qoray haddii xoolahaygu xaaraan iyo xalaal isugu jiraan maxaan sameeyaa oon ka yeelaa su-aasha labaad ee su-aashaa ku xigta saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay maxaa diinta islaamka ka qabtaa lacagta caydha loo yaqaano ee laga qaata hay-adaha iyo maaragtay raashinka iyo waxyaalaha hay-aduhu bixiyaan hay-adaha gaaladu maxay shareecada islaamku ka qabtaa su-aasha sideedaad maxaad waxaan ku ibtilaysanaya buu leeyahy qofka soo qoray xanta iyo been abuuradka iyo dadka in la dacniyo arrintaas sideen uga toobad keenaa maxaad igula talin lahayd su-aasha ku xigta saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay waxaan ku riyoodaa wakhtiyada qaar aabbahay oo dhintay oo aan noolayn kadibna dadka waxay igu yidhaahdaan waa inaad wax bixisaa mar haddaad aabba aragto riya aad ku aragtay odaygu u baahan yahay waa inaad qaxwaha shubto shaahaad kariso iyo shaahadar iyo wax la mid a arrintaasi sheekh shareecada islaamku maxay ka qabtaa su-aasha ugu dambaysa saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay nin baa jira aanu xagga aabba ka walaalanahay isagana gabadh baa jirta ay xagga hooyo ka walaala yihiin gabadha inaan guursadaa sheekh ma ii bannaanta fale tafadal alxamdu lilaah qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah inuu xalaal raadsado oo xaaraanta cunideedu dhibaato badan bay leedahay oo qofka cibaadadiisii abaan laga aqbalay siduu nebigu tilmaamay iyo ducadiisi walaa budda min atakhalusi min almaal alxaraam maalkaa xaaraanta ana inuu ka takhalusay intuu noolya waa waajib oo aan laga dhaxlin sida uga takhalusaya ama isaga farsamaynayaana waxa weeye hadduu cid ka qaaday ciddii buu u celinayaa cid gaara hadduu ka boobay ama laaluush kaga qaaday ama xoog kaga qaaday ama farsamo wuu u celinayaa xoolahani haddii ay dan guud ahaayeenoo wixii ummaddu ay wada lahayd uu wax ka qaatayna towbaddiisa waxaa ka mida inuu ku celiyo ummaddii haddii waxaani uu ahaa wax cayntiisa xaaraan u ah oo maal khamri iyo ribe iyo waxyaabaha uu ka keenayna danaha guud buu ku celinaya iskuulladii iyo waddooyinkuu gelinaya ama fuqarada aada u jilicsan buu siinaya sidaasaa looga takhalusayaa laakiin inuu haystaa waa xaraam inta xalaashuun la soo hadh inta xaaraantana iska farsamee meelahaasaad geynaysa si aynu soo sheegnay su-aasha kale odhanaysa hay-adaha waxa laga qaadayo iyo gaalada mucaawanooyinka ay bixinayaan mucaawanooyinkaas waa la qaadan karayaa haddii wax shuruudii aanay ku xidhnayn oo diintaada iyo dhaqankaaga saameynaya ama fitno ah oo qofka diintiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan laga fitnaynayo wixii lagu siinayo lagu dhiibayo o lagu dhaafayo waad qaadan kartaa waad ka faa'iidaysan kartaa oo nebi maxamedba hadiyadda gaalada wuu aqbali jiray waase ka jawaabi jirayoo isaguna hadiyaddaasoo kale u bixin jiray su-aasha kale ah dadka ayaan duraa abtirsiimadoodii iyo nasabkooda ama aan xantaa ama wax ka sheegaa sideen uga toobad keenaya toobadda aad ka toobad keenaysaa waxa wey inaad faraha ka qaado kana murugooto go-aansatay inaana dib ugu noqonin qofkii waxaan aad ku samaystayna istixlaal weydiisato oo tidhaahdo ilaahay daraaddii igu cafi godob baan kaa galay ama waan ku xantay markaa iska kay cafi waayo arrimahani ma sahlana waxaaynu dhex dabaalanaynaa waxay ka mid yihiin kabaa'irta dembiyada waaweyn ayay ka mid yihin markaa mar hadduu xaq bani aadam yahay oo naf iyo maal iyo sharafba waa inaad qofkii ama siisa ama cafis weydiisataa su-aasha odhanaysa aabban manaam ku arkay iyo riyo markaa wax miyaa la igu yeelanaya maya riyada waxba laguma xisaabtamo qofka riyo wanaagsan haddaad ku aragtay waa lagu bushaaraysanayaa
wax wanaagsan oo aragtay weeye isagana khayr baynu rajaynayna hadda riyaxun ku aragtayna shaydaanka ku ciyaaree waa la iska naaraya hadduu wax ku farana lagu xisaabtami maayo laakiin wixii sharcigu ina faray ayaynu ku xisaabtamaynaa ku soconayna oo sadaqadii iyo ducadii iyo waxyaabihii sunnaha ahaa baynu maraynaa su-aasha u dambaysa odhanaysa labada qof eenu walaalanahay qofkay sii walaala yihiin taa lama eege waxa la eegaa un adiga maxaa isu tihiin adiga maxaa isu tihiin baa la eegaa laakiin ka ay isku xidhantihiin dadka kusii xidhan waxba isuma hidin haddii aydaan idinku meel ay iska soo gashaan jirin oo aydaan idinku walaalahayn naasna wada nuugin waayo 30 dumara guurkoodu xaraan yahay xagga shareecada 30kaasi waa macruuf weeye marka kol haddii adiga aydaan waxba isu hayna qofa wax isu tiinay wax isu sii yihiin sharci ahaan ma noqonayso xaraana guurkiisu waa xalaal qofka ah wallahu a'lam jazaaka allahu khayr wa baaraka allahu fiik sheekh ilaahi subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo innagana inagu anfaco jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu